Soomaaliyeed dhaqanlagu daydiyo gabdhi fiihi aniyo tinkuleeyeen gabdhi fiihi aniyo tinkuleeyeen السلام عليكم رجاريسا ما في عندين سوق حولها ساتين ما فايدين سوق حولها أنا قبل حين جت الله ودنها ما قرنيسين ودنها نجت الله ما قال رجار سوق حولها سوقتين وحنا راينا ينيسي وحير ددوينا جارس دقن وهالير أما أقون قبا أما أوب قبا waxaan rabnaa gabar yar oo akhrisatay oo xifrad leh oo aqoon leh oo injineer ah oo magaalada wax fara badan ka bedeli doontaan idinkeena hadaatiin magaalada reer Gaarisa waxaan rabaa waxyar inaan idin sheego mar labaad gabadha soo dhaweeya kadibna codkiina siiya hadaatiin reer suuqa xoolaha saawtihiin dadka aad shaqaalaysiin oo meel geysatiin lama xisaabtantiin reer Gaarisa hadaatiin aan runtan ii sheegi waxaan rabaa maanta dad yar yar oo dhalinyaro ah oo annaga aan shaatiga soo qaban karno oo la xisaabtami karno inaan kaysanno magaalada Gaarisa maqlaysiin waraysuqa xaram ismaqlayna arinta diyaar may tahay dhalinyaro ma dooranayna magaalada ma bedelayna wax ma ka bedelayna hani waabi gabadha waxay ogaan doontiin inay wax ka bedeli doonto baahida magaalada Gaarisa ka jirto waxay kale wax ka bedeli doontaa dhalinyarada iyo dumarka bay kor u soo qaadi doontaa ayda salaamay rasuuqa xoolaha aniga waxaa la yidhahaa Axmed Naasir Professor Baxurna waa la yidhahaa si aan kula baxayba ninba hadda ka hor waxaa la yidhi cid weyn baa cid u soo martay cidda oo kala huruday markaasaa eelo yar oo kilo oo boosho lagu kariyey markii kilooga booshada lagu kariyey buu qalab qaato oo u yaasay waana amin dambe waxaa la yidhi maxaad u yaasay aminka intee u socotaa haddee ninka wuxuu cudi jiray digsi lagu karin 10 kiila wuxuu yidhi soortaan ka dhigto saanteedaan garani horta anaga gabdhii la soo qaadan jiray maana dabadidi jiray soomiina arki jirin aniga xuur koobaanay laakiin nin siyaasi oo kaba rug baan ah soorta laga dhargi doono saanteedaan garani waa hani horta adduunyada waxaa lagu wax ka dhacay gabar walba inta ruux walba inta fanfaan leaders akhristo dhig waan taaganay 8 degree oo taa sidii kukiyada oo kale horta engineer wax walba waa kama kukiya wax walba ay soo bogtay gabadha Han Xuseen Dhubo waa la dhahaa ma garateen idan anfici waa gabar dadka anfacayso anigu waxaan u soo raacaa jirtaa bari balanbala aan aadinaynaa bari dambe dhadhaab bari dambe ijaara marka waxaan leeyahay codka siiya ma siiseen إن شاء الله بين الله كريم هذا يسوقش دمر كعيل ويكبحيان بابوين كعيل ويكبحيان أنا لسودا بيا وإنجينيا كورة على سيا
kuuraha la siiyo meel walba ceel baa laga duri insha allah baynilaahi kariim reesuuqa xoolaha ma salaamantu waa salaamantiin seetiin aniga magacayga waa hani xuseen dhuuwow gabar reer gaaris baan ahay gabar gaaris ku dhalataan ahay laakiin ani qabiilkayga waa soomaali ani qabiilkayga soomaali waaye soo soomaali meeshan uma badno ani qabiil ma qabi oon soomaali ka ahayn waxaan rabaa in lii soo dhaweeyo gabar waxaan ahay shahaado fiican haysato oo mastarka haysato 2 digriina haysato oon rabo dadka inaan u adeego inay shaqaalaysiin baan u baahanahay waxaana shaqada ku heli karaa xaashida jeebkiina ku jirto kuuraha ah haddii kuuraha ay isiisiin oo xaashida isiisiin uma niigu xamaali karaa soo saas maaha ma soo dhawaynaysiin bal gacmiina arkay inay soo dhawaysay rasuulka ay soo dhaweeya aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan ogsoon yahay qorax baa taagan tihiin aniga waa markii ugu horraysan doorasho u soo hamoodo oo hami doorasho isoo gasho waaye waxyaalahan dhaliilaayaa jirtaa waxyaalahaasaan rabaa inaan wax ka beddelo khaasatan biyola'aantaan rabaa inaan ku dadaalo ina waa nolosha waa basic essential life waa biyaha waxaan rabaa inaan ku dadaalo oo gaaris aan biyo u yeelo yaan doonayaa waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo gabdhaha waxaan rabaa hooyooyinka waxaan rabaa gabdha berri wax tari karaan inay yihiin gabdhaha hadda meeshan jooga ma rabtiin in anigoo kale aa noqotiin inaa akhrisatiin ma rabtiin oo gacantiinna ku ilbaxdiin waxaan rabaa diinta inaa ka bilowdiin haddana iskuulkaa ka bilowdiin aniga haddaan soo galo waxaan ballan qaadayaa gabar kasta oo iskuul ku jirto oo u baahan fiis inaan bixiyo oo qabiilna ku salaysneen dad badan waxaa nala degan dad oo u badneen gaaris aniga waxaan rabaa inaan mideeyo hadda waxaan idhe soomaali baan ahay qabiilkayga waa soomaali qabiil ma qabo aniga waxaana diyaar u ahay qof kasta oo gaaris degan in uu si walaaltinimo wax ku qaybsadaan iskuullada inaan ku wareego oo fiista u kala qaybiyo oo iskuullada ka warqabo gabdhaha khaasatan iyo dhallinyarada wiilisha oo shaqala'aanta ah inaan u furi karo gacmahooda waxay ku shaqaysan karaan in aan polytechnics u furi karo ay gacantooda ku shaqaysan karaan in aan wiilisha dareewalnimo aan bari karno in aan gabdhaha tacliinta aan ku muujin karno in hooyooyinka oo suuqa joogaan aan kaalmayn karo women empowerment marka waxaan rabaa xaashidaa xunta oo jaabkan iigu jirto inay siisiin aan anigana meel ku gaaro gabdhahu maa soo siisay inaysan safartan ayada aniga in liigu fiiriyo yaan aad u rabi lahaa dadka inaan mideeyaan rabaa biyola'aantaas ay tahay inaan wax ka qabto gabdhaha yaryarka ah oo inta joogaan waxaan rabaa gabdha balyament ka soo hadlayin inay noqdaan gabdha hooyooyinkooda daaran u dhisayin inay noqdaan gabdha hooyooyinkan kala qobanayn inay noqdaan marka waxaan rabaa inay soo dhawaysiin reesuuqa xoolaha oo ay soo dhawaysiin oo kuurahaas ay taxaanshadaa jeebkiina ku jirto inay siisiinaan rabaa ma isiinaysiin xaanshada jeebkeeda ku jirto gacanta halii taaga xaanshada haddii liisiin rabo gacanta halii taaga waa mahadsantiin waa mahadsan kursigan ku guuleysto waxaan rajaynayaa inaan xoogga saaro qawiil wax la dhahayo inaan
Soomaali oo dhan degan waxaan rabaa inaan isku keeno oo mideeyo raalli ma ka tihiin waxaan kaloo rabaa inaan xoogga saaro maamooyinka iyo gabdhaha iskuulka ku jiraan gabdhaha waxaan rabaa inay akhristaan oo baasari siiyo oo waxaa jirta ugu reebta lacag loogu talagalay in ay maamooyinka iyo gabdhaha lagu kaafiyo waxaan rabaa duulay gaarsiiyo oo ay dooratiin in aan gabdhaha sayto fiis ka bixiyo maamooyinkana ku dadaalo aan aad u rabaa mii soo dhawaynaysiin reer Gaaris aad iyo aad baad u mahadsantihiin khayr allahna siiyo saa ii soo dhawayseen malaayigan ii soo dhawayso waan iigu soo noqonayaa reer Gaaris Andoogo aad iyo aad baan u mahadsantihiin dadka Soomaaliyeed dhaqan lagu daydiyo gabdho fiican iyo tinku leeyihiin gabdho fiican iyo tinku leeyihiin dadka Soomaaliyeed dhaqan lagu daydiyo gabdho fiican iyo tinku leeyihiin gabdho fiican iyo tinku leeyihiin aniga bari rabnaa kuriina bariyayna dantayna aan wadanaan ii sheegayna adinkoo raali codsigayna naga dhagaysta inaan nagu qaabishiina rabnaa saasaan iga bariyayna waxaan codsanaynaa inaan isku mid ka dhigno oo siminaa ka dhigno qabiil ma qabtahani Soomaali oo dhan ayay madax u tahay annaga qabiil ma rabno inaan ka hadalno Soomaali oo dhan ayaan kuura ka baryaynaa waxaana soo dhawaynaynaa xildhibaanada Hani Xuseen Duwo oo women rep ayaan soo dhawaynaynaa asante sana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريبوليفتين ساتين أنا مقعيق وهاني حسين دوو قبر صومالي بانهاي قبر قبيل كسليسن مي قبر صومالي محمد بانهاي وحان كورا كدونا يا إني قدن أورير غارسة غارسة كاونتي أيان كورا كروا كوريهين أمامي جينا يا وحان روي لها إنا كوريهين نجابك حانشتن يقو جرتنا يقو ساعديسين أو ميل أن كتاقو أنيقا هدو إلهي كرسيقا يقو قوليو وحان روا إنان آتو قرب قبطو دالن يرتا قبدها إيو هويوينكا وحان آت أنيقا قوادينان أهاي كوران إيقا بريايا إن شاء الله هدي كوران آي سيسين وأنكو قوليستو وحان رجينا يا إنان دالن يرتا وحبادا نقبتو wiilisha inaan shaqo geliyo oo shaqada gacanta waliba aan geliyo wiilisha waa dhalinyaro waxay u baahan yihiin shaqay u baahan yihiin aniga shaqo abuur baan samaynayaa hooyooyinkana shaqo abuur baan u samaynayaa waxaan iiga codsanayaa xanshida yarka oo jaabkiina ku jirta in ay igu saacidaysiin taa ayadu ma meel igeynaysaa anigana ay igu fiirisiin dad badan baa soo dhisteen Soomaan aniga haddaan hor leeyahay bal in ay igu fiirisiin aan rabaa reebuliftiin oo ay soo dhawaysiin mi soo dhawayseen gacantiina arkan yoona mkono gacanta arko aadi aad u maasantiin reebuliftiin jazakallah waan ila joogaa marka ani Soomaali Maxamed baan ahay qabiil ma qabi haddaan soo galana insha Allah waan imidaynayaa جزاك الله وما حسنتي ريبوليفتن
xuseen dhubow waxaan u tartamayaa kursiga haweenka Garissa County wumere baan u tartamayaa aniga gabar Soomaali baan ahay gabar qabiil ku salaysan ma yihi gabar reer Garis baan ahay gabar Soomaaliyeed baan ahay waxaan rabaa inay soo dooratiin oo kuriin igu saacidaysatiin suuq ma isa dhawaynaysiin aniga qabiil kuma salaysni wiilisha tugtuglayda wiilisha altoolayda waan garab qabanaya waxaan rabaa haddaan soo galo in aan gabdhaha fiis ka bixin karo wiilisha inaan shaqaalayn karo garash u furi karo gacantooda ay ku shaqaysan karaan ayaga wiilisha xitaa inaan iskuul ka bixin karo inaan dadweynaha midayn karo aan ku salaysnayn qabiil yaan doonayaa mi soo dhawayseen inay shaqaalaysiin diyaar mu tihiin gacantiina arko hadday shaqaalay rabtiin hal ii shaqaaleeyo anna waa nii adeegi waxaan rabaa inaan qabiil ka bixiyo Garis balooriyaha la isku dagaalay inaan mideeyo Soomaalida oo ay wala degaan ay balooraha kala xiran oo isku dagaalaan baan rabaa inaan Soomaali mideeyo rabaa diyaar mu tihiin isoo dhaweeya kuurahaasaan wax ku tari karaa gabar akhrisataan ahay gabar masters haysataan ahay oo 2 degree haysato shahaado ku filan haysato waxaan rajaynayaa inay isoo dhawaynaysiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadka Soomaaliyeed dhaqan lagu daydiyo gabdho fiican iyo diinku leeyihiin gabdho fiican iyo diinku leeyihiin